barnaamijkan wuxuu ahaan doonaa mid ka mid ah barnaamijyada lafdhabarku ah horumarinta iyo dhiirigelinta gabdhaha Soomaaliyeed ee waxbartay iyo dumarka Soomaaliyeed si guud. Ana idin xiriirin doona dood qurux badan soo socota. Hay'ashee marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa Zahra Qorane oo ka mid ah aqoon-yahanada gabdhaha ee aasaasay organization-kan soo dhow Zahra. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaantiin waa idin salaamayaa. Qof walba waxaan ku salaamayaa magaca iyo mansabka uu meeshan ku fadhiyo. Si gaar ah waxaan u salaamayaa meediyaha iyo panelistiska. waxaan idin leeyahay dhammaantiin waa ku mahadsantihiin waqtiga quruxda badan ee aad na siiseen. Aniga magacayga waa Zahra Qorane sida waa weys idin sheegay. waxaan ka mid ahay aasaasayaasha xarunta Living Women Empowerment Center. waxaan ahay sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka xarunta. Living waxa waaye xarun lagu empower gareeyo ama awood lagu siiyo haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha yaryar ee hadda soo koraayo. Focuskana waxaan ku saarnaa inaan gabdhaha empower gareyno anagoo u barayno waxbarasho, sidoo kale ka caawinayno inay helaan shaqooyin. dhanka sharcina ma ka marno waxaa waaye waxaan ka empower gareynaa in sharciga gabdhaha aan awood ku siino oo aan xaqoodii ugu soo dhicino. waxaa idinka raaligelinayaa wax kasta oo maanta ka soo kulanteen. dhalinyaro badana intay soo waceen ay dhaheen jidkiyaana laga celiyey. marka wax kasta oo aad u soo sabirteen juhdi walbood soo geliseen meeshan inaad ku soo gaartaan waa ku mahadsantihiin. qof u horo waxaa ugu weyn oo ugu muhiimsan waxaa waqtigiisa. waqtigiina qiimaha lahaa inaad noo soo hortiinna aada idinkaga mahad celinaynaa. waxaa laga yaabaa badankiin inaad jaamacado ka imaadaan, qaarkiin shaqooyin ay ka soo baxeen, guryahoodii ayagoo ku laabanin ay noo imaadeen ayagoona tixgelinayo. anigana waxaa idin leeyahay anoo ku hadlaya magaca Living Women Empowerment Center iyo Dalsan Media Group. waa abaalkaas waa idin heynaa. we appreciate you and thank you so much. idin leeyahay wax badan waliba. waxaan si gooni ah mahad ugu jeedinaynaa Dalsan Media Group oo sabab u ahayd barnaamijkan maanta inuu noo fulo. mar kale waxaa idinku celinayaa Aweys oo barnaamijka intiisa badan noo daadihin doono. Aweys waa mahadsantihiin. Zahra Qorane waxaan ku mahadsantahay barnaamijkana guda gelina. marka hore waxay la soo dhaweysaan panel discussion-ka saaxiibada igala qayb galaya. waxaan u yeerayaa xildhibaan Deeqa Xasan Xuseen oo aqalka sare ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. fadlan ila soo dhaweeya iyo Deeqa. sidoo kale waxaad ila soo dhaweysaan Professor Xasan Sheekh Cali Nuur oo bara jaamacadeed ah culumta siyaasadda ka dhiga jaamacadaha dalka. waxaad sidoo kale ila soo dhaweysaan Maandeeq Xaaji Cilmi oo la taliyaha dhanka arrimaha dhaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Maandeeq soo dhaweey. magacaygu waa Aweys Xasan Maxamed. waxaan daadihin doonaa doodan haddii la yidhaahdo. waan ku faraxsannahay waan idinkaga mahad celinaynaa inaad nagala soo qayb gasheen. doodan waxay ku saabsanaan doontaa awoodsiinta haweenka Soomaaliyeed, hoggaanka iyo matalaadda. way noo bilaabanaysaa. bismillahi raxmaan waxaan kula gelaynaa doodeena. waxaan idin siin doonaa qayb qaadasho ah oo su'aalaad ku weydiin doontaan panel discussion-ka. qaybta koowaad waxaan dhegeysan doonaa martida iyo siday usoo diyaariyeen mowduucan. kadibna su'aalo ayaan ka weydiin doonaa. qaybta kale waxaad lana wadaagi doontaan su'aalihiin iyo aragtida barnaamijkan aad ka qabtaan. marka hore waxaan jeclahay inaan su'aasha koowaad weydiiyo. su-aasha koowaad waxaan rabaa inaan guddiga uga dhiga barnaamijkeena maadaama aan ka hadlayno hiigsiga haweenka iyo matalaadooda. dalka Soomaaliya haweenka door lixaad leh ayay ka soo qayb qaateen oo aad ka warhaysaan. markii burburka lagu dhacay waxa lagu fakado waxay ahayd hooyada Soomaaliyeed oo dusha u ridatay mas-uuliyadeedii iyo tii aabbaha iyo tii guud ahaaneed mujtamaca. dhanka kalena waxaa jira dadaalo fara badan oo sanadihii ugu dambeeyay xukuumadihii dalka Soomaaliya ay iyana qaadanayaan oo ahayd matalaadda haweenka in xoogga la saaro kana muuqdaan golayaasha dowladda Soomaaliya. haddaba muhiimadda koowaad waxa weeyaan sooyaalkaasi matalaadda haweenka iyo hoggaankooda siduu ahaa, maxaa lagu gaaray, siduu ku soo bilowday, maxaa caqabado ah oo ka qabsaday haweenka Soomaaliyeed.
xildhibaan deeqa xasan xuseen ayaan siinayaa oo aqalka sare ka tirsan. بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa alla mahad iskale waxaan uga mahad celinayaa tiimkii igu soo casuumay ka soo qaybgalayaashana sidoo kale panelka tiimka igula jira sidoo kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad ayaan ugu faraxsanahay runtii inaan panelkan ka mid noqdo su-aasheeda haddaan usoo gudbo 90gii wixii ka dambeeyey sidaa sheegtay waxaa lagu baxsaday haweenka Soomaaliyeed noocyadooda maadaama ay shaqooyin jireen inay qabtaan shaqooyinkii maxay ahaydey sida ganacsiga oo kaleeto gabadh walba oo Soomaaliyeed waxay dhexda u xiratay inay badbaadiso qoyskeeda cid walbaana ka warqabta xataa markii dhoofku bilowday gabadh walba familka intii ay gabadh u maqnayd iyagana way ku badbaadeen hadday dalka gudihiisa tahay hadday dibadda tahay waa lagu badbaaday oo gabdhaha iyo wiilasha markay dhoofaan xitaa waxa reeraha dib ugu soo noqonayay waxay ahaayeen gabdhaha marka gabdhaha maanta dalka meeshu maraa waxay ka yihiin qayb aad muhiim u ah mararka qaar waxaa dhici jirta xitaa in ay ka qayb galaan hadda xamar oo kale way kala xirxirnaan jirtay wixii isku furay haween ahaayeen dhexda u xirto xitaa qaarkood iyagoon ciidan ahayn loo bixiyay generaal hebel sababta loogu bixi waxay tahay iyadoo dagaal socday waxay dhexda u xirteen inay wadooyinka xiran furaan inay dadku isdhex galaan marka laga soo tago gacan qabashadii familka waxay qabteen xitaa waxyaabo kale oo ay rag u lahaayeen inay qabtaan oo waxyaabo sulxa loo aqoon jiray marka dhexdhexaadin ciidamada is horfadhiya qabaa'ilada is haysta meelo badan marka ma dhihi karno kaliya waxay wax ka soo qabteen dhaqaale ahaan reerkii sidii ay u badbaadin lahaayeen maadaama aysan shaqo jirin odaygii reerkan uu bilaa shaqo yahay taas kaliya maahan waxyaabo badan ay soo qabteen haddaan usoo noqono dhanka aniga markaan iska bilaabo horta waxaan ahaa macalimad waxaan kasoo bilaabay xanaano sababta aan ugu biiray macalinimadan waxay ahayd markaas xilligii la joogo waa loo baahnaa oo waxaa jira gaab weyn oo macalinimo ah midda kale macalinimada gabadha macalimada way kaga fiican tahay dugsiga dhexe ilaa heerka dugsiga dhexe way kaga fiican tahay ragga sababtoo ah waxay fahmaysaa ilmaha yar iyo wuxuu u baahan yahay kasoo bilow xanaanada ilaa iyo grade 8ka gabdhaha ku fiican marka gaabkii jiray dartiisa waxaan ahaa horta macallimiintii ugu horeysay soo baxday 2003 waxaan aasaasnay urur haween oo macallimiin ah Somali Women Teachers la yiraahdo sababta oo sameeyna waxay ahayd gabdhaha in bal ay yeeshaan han ay ku dhameystiraan waxbarashada xilligaas waxa laga baqaayay in gabar walba ay waxbarashada dhexda kaga tagto marka si ayna taas u dhicin inay arkaan gabar intay wax baratay macalimad noqotay si iyagana hadhow ugu daydaan ay is yiraahdaan bal idinkana gaara meeshaas ay gabdhahaas gaareen oo ilaa heer jaamacad ay soo gaaraan marka taas waxay ahayd bilowgeennii inaan gabdhihii iskuulada ku jiray grade 8 kaga tagaan oo gabdhihii waxbarashada ma dhameystaantii anaga badatay taas caqabada aan kala kulanno waxay ahayd in raggi ay yiraahdeen way u sameyseen NGO-gan gabdhaha kaliya ah maxaa u sameyseen xataa waxaan gaarnay markii NGO-gi aan ku guuleysanaa waxaan sameynay iskuulo gabdho kaliya ah oo rag waxay ka ahaayeen waardiyaha bas rag noo ahaa inta kale gabdho ahaan maamulka macallimiinta dhammaan waxay ahaayeen gabdho sababta taas keentana waxay gabdhihii ururkaas ku midoobay macallimiinta ahaa waxay waayeen shaqooyin iskuuladii waxa shaqadii siiyay waayeen macallinimadoodii ay ku shaqeystaan way waayeen waxay ku leeyihiin fasaxeeda badan cudurdaarkeeda badan xanuunkeeda badan taas marka waxay keentay in iskuul gaar ay yeeshaan waxaan furnay iskuulo badan oo dhowr ah Maria Girls Primary School iyo sababta waa naloo iman jiray rag waa noo iman jiray dhalinyarada iyo professorkii oo ka cudur daaranayaan intay noo yimaadaan waxayna dhihi jireen maxaa takooridda inta lagu sameeynaysan oo rag u takooreysaan marka hadda adiga albaabkaaga xiratay iskuulkii ku furnaa iskuuladan waa ogtiino waa wada private ahayn xilligaas hadda iskuulkaaga u diida gabadha inaa shaqaaleysiisid way ku qasban tahay inay meel wax ka dhigtay hesho tiya marka waa ballaarino ilaa 5 iskuul ay gaareen gabdho kale waa jireen oo iyagana fureen santara jiro skill training ah taas waxay ahayd marka qaybta dhinaca waxbarashada markaan aan ka fiirino sooyaalka haweenka micnihii ay ka gaareen maanta heerka la taagay soo gaarsiin dhinaca waxbarashada meeshaas ay ka ahaayeen oo gabdho macallimiin oo badan aan soo baxay oo runtii aad wax u taray gabadha xilliga ilaa grade 8 ka markay tahay
iyo waa xilliga ay gabdhuhu majhuurka noqdaan ay u baahan yihiin qof fahmaya haddii inkees galaaska dhexdiisa dhibaato la kulanto uma sheegi karto macalinka ragga ah taasaa marka nagu dhalisa taas markaan kasoo gudubno haddaan dhanka siyaasadda waxaan kusoo biiray 2017 markaan kusoo biiray waxaas lahaa wax badanaa bedeli doontaa wax badanaa qaban doontaa meeshii markaas aan arkaynay xagga waxbarashada gaabkii ka jira markaan kasoo tagnay isla siyaasaddan bal haddaa wax ku dhex qaban kartaan aad fiirisaan ood gashaan maahayna bariis nagama soo gelin siyaasadda annaga umana baahneen maanta shalay meeshaan joogo maanta ma joogo shalay aan ka fiicnaa markaan bannaanka joogay sababtoo ah dhaqaale ahaan wax walba waa kaga fiicnaa markaan soo galay laakiin caqabadaha way badan yihiin oo dhinaca caqabadaha uga hadli doonaa insha Allah 17kii aan soo galay 16kii aan campaign-ka bilaabay ilaa 17kii campaign 7 bilood ku jiray waxaan ahaa hal teeram aan labada aqalba u tartam midna waa soo waay midna waa soo galay golaha shacabka soo hormaray waa ku feel garoobay ma istaagin haddana kii saraan tartankii isla waa sanadkii kii sara haddana u tartamay ilaahay waa igu guuleeyay intaasna waxaan u orday waxay ahayd in aan ku matalo haweenka wixii ii qabsoomay waxaan ii qabsoomay gadaalan ka sheegi doonaa su'aalaha waa badan yihiin marka meeshaasay soo gaartay hadda laftirkeeda 6 sanadkii 7 ii socdo intaan siyaasadda ku jiro waxaan qabtayna wixii la iiga baahnaa inaan qabto ma gaari runta haddii la sheego lama gaari karo sababaha jirana waa badan yihiin caqabadaha uga hadli doonaa marka sooyaalka haweenku waxay adduunka oo dhan waxay u yihiin udub dhexaad maraan waxaan u tagnay dalka Turkiga training dalkaas Turkiga xisbiga Akbarti wuxuu ku dhisay haweenka meesha maanta taagay Akbarti waxa gaarsiiyay haween marka haweenka haddii si dhaba ay dawladdu uga shaqeeyaan ama meel walba ay joogaan iyo dal walba ay kamid yihiinba dalkaas laf dhabar ay u yihiin marka waa ku dheeraado maasan xilbana doomasan tahay dabcan batalada haweenka iyo dhulkii qaateena sida aad sheegtay wax mowduuc iyo barnaamij lagu soo koobi karo ma aha waxaan aqriyay majalada Livegaard lagu magacaabay ee Faransiiska soo baxday warbixin lagu daabacay 192 dawladood ee adduunka ayaa 19 ka mid ah haween hogaaminayaan dalka Rwanda haweenka ugu badan ee baarlamaanka ka soo booqday 64% ayaa ku qoran Soomaaliya sidoo kale waad aragtaan 24 ayaa koontada 100% ay baraysaa professor aan ku xijinaya kadib waxaan siin doonaa hadii ay yiraahdo la taliyaha barsoolka haweenka iyo matalaadooda fursadaha soo maray iyo dalkan meesha ay soo gaarsiiyeen caqabadaha iyo ku xijin doonaa soo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب روحان عن بلي بوجادين دريا قبلها تأذير حرمتان أساسي أيام وحان دريا عن بلي بوجادين دريا أساس وكلته waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo doodan oo iiga duwan marar fara badan oo aan meediya ka soo muuqday tana iiga fiican maanta oo gabdho joogaan sababtoo waxay tahay dadka waa u sheegay hadda ka horna waa ku soo haddana waa ku soo celinaa aniga hooyaday markay dhashay waxay dhashay 2 gabdhood mataana ah gabaray dhashay markaas wiil dhashay marka sadarta aniga gabdhahan iskala jiraaba gabdhahan ka mid ah baan sidii gabdhahan ba iskala jiraan haday saasta marka oo gabdhaha la jiro hadana waxaan wada hadana macallin aan hadana sax hadana markaan macallin ahay marka wiilish iyo gabdhaha fasalka aniga gabdhahan ilaashada hadana amaankooda iyo raaxadooda iyo wanaagooda jecelahay hadii laga soo gudbo loo soo gudbo halkan aan doodan aan caawi joogno ama galabta aan joogno oo dhawaantii ah dood furan oo u baahan in laga doodo waqti hore laga doodo u baahanay laakiin markii ay noqoto in laga doodo si macno leh markii ay noqoto in laga doodo khilaaf badan iyo dood fara badan ay ka dhalan karto ayaa u arkaa doodan inay tahay sababtu wax kale ma ahan
meelo fara badan ayaa lagu calaanjiyey markii la calaanjiyo laysku walaaqay ayaa walaaqiyaa wuxuu gaaray inaan la kala garanaynba wixii sax iyo wixii khalad aan la kala garanayn laakiin anigu waxaan leeyahay start point aan leeyahay meel aan ka duulaan leeyahay oo ah bulshada gabdhaha iyo wiilasha yaa nafci badan su-aashaasaan aniga isweydiinaya markaan isweydiiyo su-aashaas 3 qof ama 3 dumar ah ayaa marka aniga tusaale ii ah marka ta koobaad waxaa waaye waa hooyaday ta labaad waxaa waaye waa walaashay ta saddexaad waxaa waaye ilmeyga hooyada saddexduba hooyaday iyo aabbahay hooyadayaa fiican shako kuma jirto aniga iyo walaashay waalidka waxaa u fiican walaashayaa u fiican aniga iyo caruurtayda hooyadood ayaa caruurta u fiican maxaa soo hara marka haddii hooyaday aabbahay ka fiican tahay haddii walaashay aniga iga fiican tahay haddii xaaskaygu aniga iga fiican tahay caruurteena wax aan ka hadalna maba jiraanba waa haddii ay raggu ogol yihiin inay runta sheegaan waay laakiin waa haddii raggu ogol yihiin inay runta sheegaan waay marka and I think qof kasta oo si sax u fikir arrinkaas saddexdaas arrimood waa igu raacsan marka waxaan rabaa macnaha oon saas u dhahayaa macnaha inaan meesha ka saaro doodaani hadday socoto derbi ay ku tegi doonto oo ah iska soo horjeedinta ragga iyo dumarka oo macnaha waxaan qabaa waxaa la iska soo horjeediyaa labo shay oo isu ah compatible yani laba shay oo isu dhigma marka kuwaan isuma dhigmaanba marka haddaysan isku dhigmin iska horkeenidooda ayaan kasii gaashaamanaya marka dooda inta kale waxaan u qayb qaadan doonaa wareegga labaad waa mahadsan isla su-aasha ayadoon iska soo horjeedin maadaama hooyadii sida aad sheegtay gabdhaha kula dhashayba ay ka wanaagsan yihiin 30 sano duulkaasi soo qaateen xildhibaanada ugu dambeysay hadda hadalkeedu waxay ka mid ahayd waxbarashadii maxaa diidaya in lala soo jimeeyo wiilku la yidhaahdo intaan lacfiya lagu qabaye aan siina fursad intaasi ka ballaaran dood furan oo kale waa kuu sheegayo hadhowto markii oo dood la geliyo waxaa imaan doona waxaa la dhaho luqada qalaad lagu dhaho environmentiga deegaanka iyo duruufta aan ku noolnahay oo dhaqan dhaqaale ayaa waxay tahay mid rool ka cayaaraysa marka taas waay aan ku dhahay wixii meelo badanaa looga dooday waa laysku walaaqay runtiiyo beentii aan la kala garanayn marka haddii laga duwi taga waxaan ku dhahay culays fara badanaa ka imaan doona laakiin marka si aan cadowgaas uga baxno ayaa waxaan ku dhahay sideedaba yaa bulshada u fiican bulshada waxaa u fiican dumarka hooyadaya aabbahay ka fiican walaashaya aniga hooyaday iga fiican caruurtaydana aniga aan dhalano hooyadood ayaa aniga iga fiican siinayaa mandeeqo xaji cilmi oo la taliyaha xafiiska ra-iisul wasaaraha ah marka wixii saas marka guud ahaanna ummadda saasaa u fiican saasaan rabaa inaan ku dara macnaha la taliyahay isla su-aashaas dalka dumarka fursadaha soo maray maxaa ku daraysaa asalaamu calaykum marka hore waxaan salaamayaa martida kasoo qaybgalayaasha ah sidoo kale waxaan aada u salaamayaa martida ilagala qaybgalaya dooda adigoo daadiyaha ah libinna waan bogaadinayaa waxay buuxiyeen boorka waa gabdho aqoon-yahanaa dhalinyaro ah iyagiyaana bulshada ku dhex jiro oo qaybaheeda kala duwan professionaalkooda uu yahay marka waxaan rajeynayaa inay noqoto nabad soo gudbi karta dareenka dhabtaa ay gabdhaha ay ku nool yihiin su-aashan haddaan usoo noqdo fursadaha iyo sooyaalka dumarka okay horta aniga waxaa aaminsanahay dumarka soomaaliyeed in ay yihiin dad resilient ah ama dad adkaysi iyo dulqaad badan maxaa yeelay adduunyada kale haddaan aan ka cabir qaadano haweenku dhibaatada ay ka mareen haweenka soomaaliyeed adduunyada kale ma aysan marin marka waxaan markasta ani haween soomaaliyeed aan fiiriyo waxaa iisoo baxay ereyga oo la dhahayo adkaysigii qof ah oo kale
dagaal sukeeya waddanka ka dhacay hooyada Soomaaliyeed waxay u baraartay in ay banaanka qaad ku gado yaanyo ay caruurtii koriso aabihii shaqo la'aan ay ku dhacdo kuma aysan sii halkaan waxay kaloo dhabarka u dhigteen doorkii bulshada ku lahaayeen waxay ka shaqeeyeen nabadeen waxay ka shaqeeyeen isbaaro qaadaan waxay ka shaqeeyeen waxaan xasuustaa hooyada iiga sheekaysaa General Madiino General maamo la dhaho oo iyadana ku dhex dhimatayba iyadoo ka shaqeynaysa nabadeentaas iyo isbaaro kala qaadkaas aniga shakhsiyan waxaan ka soo jeedaa qoys walaalahay intay diideen in ay dabadda u dhoofaan ay dhexda u xirteen ay dhaheen waddankeena kama tagayno caasho xaaji cilmi ama xaaji cilmi markasta waxaan ku dhex jiray sooyaal taariikheed oo u ah markhaati haweenku dhibaataday ka soo mareen inay waddankan ay u gurmadaan inay u hayeen lafdhabar inay u hayeen breadwinners inay iyagu isku hayeen ummadda inay irid ka xiran aysan jirin markii qad cagaaran nimankii ay kala xariiqdeen haweenku intana way tagayeen gogol nabadeed ay ka soo qabanayeen dhankaana way imaanayeen gogol nabadeed bay ka soo qabanayeen waxay isku dayayeen inay wiilashooda isku dhimanay kala badbaadiyaan waxay isku dayayeen inay isbaarada qaadaan taas baa laga soo gudbay waxaa loo soo gudbay markii Soomaali isku timid oo gogol nabadeed la qaaday liir waxa la isku darsado sidaas oo kale cartay tageen caasharool weyn ay ku lahayd waxay kariyad gareysay beesha lixaad wax la yiraahdo oo ay markaa ka dhex arkeen inay haweenku xuquuqdooda siyaasadeed ay ku soo ceshan karaan carta gabdho badan ka soo galay baarlamaanka oo wasiirna waxa soo heleen aysan tiro badnaanin tiro number oo xildhibaanana way soo heleen kadib waxaa dhacay shirkii Imbagati sidaas oo kale tiradoodu way sii korodhay kadib waxaa dhacay dowladii kumeelgaarka looga baxay Sheekh Shariif number ay ka heleen isku soo duuduub meesha aan rabo gundhiga aan u socdaa waxay tahay dowladii ugu numberka badneed ee gabdho Soomaaliyeed ay ka helaan kuraas waxay ahayd dowladda Xasan Sheekh senatarada waa gabar saaxiibteeda dadku ugu active ku jirtaa laala iga ahaato laakiin wax amaana aniga u haay gabdhaha Soomaaliyeed ee helay fursadaha inay baarlamaanka galaan ma jirto wax aan daliil ahayn aan u haay ma jirto maxaa yeelay culture ahaan iyo dhaqan ahaanba Soomaalidu gabdhaheeda waxay yihiin gabdho aanan helin fursado ha ahaato ka shaqeynta xafiisyada sare ha ahaato ka shaqeynta wadiin wasaaradaha ha ahaato ka mid noqoshada siyaasadaha iyo kuraasta waxaa maanta ani hubaa deeqa haddii la weydiiyo qisadeeda shakhsiyadeed oo ay meesha ku fadhiso inay un tahay qiso un xanuun badan la soo garbiyey nin loogaga heliyey dhexda soo xirantay ay soo dagaalantay sidaasay tahay markay dhex tageen baarlamaankii uma dhaqmin sidii dad jihaadkaas usoo galay inay kursiga fadhiistaan dad yacni jihaadkaas usoo galay dhibaatada kuraasta ku yimid dhaqanka ugu horreeya sameeyaan waxay tahay inay helaan shuruuc inay helaan wixii difaaci lahaa inay helaan wixii ay ku soo noqon lahaayeen in ay qoondada ay meesha ku imaadeen ay sharciyayaan oo ay ka dhigaan wax aysan u baahnayn inay nin dambe u hoos fadhiistaan oday dambena ay ka soo baryaan marka waxaa ani ku dhaliilayaa gabdhaha walaalaha oo fursado helay in ay dayaceen in ay wixii ay heleen xaqiijiyaan ay u noqoto fursad lama taabtaana oo gabdhaha ka dambeeyo iyaga bedeli lahayn ay uga faa'iideystaan completely ani waxaan aaminsanahay siyaasadda way ku jahwareereen markay meesha tageen qadiyad haween oo completely feminismna kama aysan shaqeyn axzaab iyo wuxuu waddanku kala aaday iyo tiimamkii waddanka isku hirtinayana kama aysan mid noqon waxay ku mashquulsanaa ilaa hadda ma aqaan marka laba nooc oo gabdhaha loo kala baxay gabdhana gurigay joogeen waxay juusgaraysteen inay noqdaan housewives gabdhana siyaasadday noo aadeen gabdhihii siyaasadda noo aadeen waxaan u hayaa wax dhaliil ah wax meel la dhigi karo oo inay noo soo celiyeen ama ay dib noogu soo celiyeen male cala alcumuum haddaan qaybta positiveka ka fiiriyo weli it's never too late dowlad kale hadda dhisantay alxamdulilah waddankan wuxuu qarku istaagay inuu burburo waa laga soo badbaaday cross road adag baa laga soo gudbay way haddana heleen yeesanbaba helen nambarkii hore oo ay ku fadhiyeen maanta weli waxay weli gacanta ugu jirtaa fursaddii shalay ay lumiyeen sida maanta ay nambarkoodu uu hoos isugu dhimay oo aysan u haysan 24%gii ay haysteen shalay uga yaryihiin bay birin uga sii yaraan doonaan ilaa ugu dambeyn la helo kaliya midda 5 kursi iyo 4 kursi midda waa dhanka siyaasadda sidoo kale haweenka Soomaaliyeed waxaa aad ugu baraarujinaya dhaqaalaha inay galaan dhaqaalihii hadda ku jiraan waxaan aaminsanahay siyaasadda waxaa furo waa dhaqaale waxa kaloo muhiim ah oo rabaa inaan ku soo gunaado waxaa muhiim ah inay haweenku leeyihiin meel isku keeni karta oo in baa wargarayso oo ay ka duulaan
duruufahooda iyo danahooda uga sheekaystaan isku empower gareeyaan taasna waxaan rajeynayaa Living Center in ay noqoto meeshii isugu keeni lahayn waxaan rajeynayaa wax annaga isku daynay oo burburay intay arkaan qaladkii uu annaga nooga burburay inay ka faa'iideystaan waxaan sameynay madal la yiraahdo Lead Now waxay movement aad u weyn aad u adag waxaan isku keenay 3 jiil oo haween ah jiilkii Raaqiya iyo Maama Cureej iyo oo waqtigii dawladda nabadda ahayd soo shaqeeyay kuraas waaweyn dalkan wasiir iyo ka soo noqday parliamentarian iyo jiilkii dhexe ee abuuray beesha lixaad ee Maama Caasho Geeliya Caasho Xaaji Cilmi iyo Dr. Hadan iyo jiilkeenan dambe saddexda jiilba wax fiican bay isku xiri karaan because casharo iska baran karaan kala duwan waqtiyo kala duwan marka lima waxaan ku talin lahaa in ay noqoto maadaama hadda iyagu center ay leeyihiin anagana marka ay iska eed wax lagu dhisay somehow degdeg iyo caadifada duruufo ay keeneen maadaama kuraastii soo dhawaayeen waqtigii siyaasadda waqtigu dhacaayay aanan arkin gabdho iyo bulshada wixii u taagan si aan iskugu dayno advocacy u sameeyno ku furmad Living Center-na waxaan uga tagayaa dardaarankaas ah inay noqoto centerka isugu geyn lahayn haweenka ay sameyn lahaayeen leadership courses ay ku bixin lahaayeen awoodyo mudan haweenku mudana in la siiyo awoodyada waa mahadsantiin منطقة ومهتم تهاي واحد اسكو درتي بلوغ سويالك عقبضها إيه دردارك هي سجارة دوية شيء ضد وماشى بسعودة واعي حلوان داق حسن حسين سنتر داق حسن حسين حضرت شرعي اللي بعتوه صورتي كرسيجا أو الله يكون له طبنكي أقل كهوسويسي أقل كسر سطر نبى كقولي ستي بوشنا كسرح موقتي محمد كل تشي أقل كهذا ضحفظه أضرب لي سنية ضادنا أهين بلين لإذن حيو شلون سأسوق الجنتين على أمو قليلا بسم الله الرحمن الرحيم horta marka ugu horeysa walaashay waxaan uga mahadcelinayaa qaybtaada inay qaadatay wixii aad ay weydiin lahayd inay ka hadasho waa mahadsan tahay horta qof walba banaanka joogo sawirka uu sawiranayo gudaha markuu soo galo waa kala duwan aan soo tartamo aan juhdi badan soo galiyo laakiin waxa ka horeysa dalku muxuu yahay horta dalkeena maanta aan soo galnay baarlamaankan ka mid noqonay dawladdan maanta heerkeedu waa halkee maanta waxay maraysaa constitution-keeni 2012 ugu dambeysay wax reform lagu sameeyo awood lagu horkeeno baarlamaanada la waayay meesha maanta haweenku ka liitaan waxay tahay sharci ugu qoran constitution-ka ma laha oo ah numberka ay helayaan kootadooda kuma qorna kootada mar walba waxay noqon jirtay wax gentleman agreement ah ma jirin wax sharci ah constitution-kii dalka 2012 reform ugu dambeysay maxay kula tahay marka koota bill ama kootada in gabdhihii meesha loogu daro shuruucdaas ku aragna waxay ahayd gabadhu ma laha fasax shaqo ma laha fasax umul ma laha fasax ma laha nuujin ma laha midda kale haddii taliyayaasha iyada la midka ay meel wada fadhiistaan sidii shaqaale u shaqaysaa waxyaabahaas iyaanoo dirsaday waa annaga isxilqaanay annagoo ilaalinayna gabdhihii xitaa duruufaha haysta waxaa ka mid ah iyadoo isku darajo ay yihiin inuu shaha iisoo shubleeyahay marka waxyaabaha shuruudii hore ku qoran ma aha waxyaabo markaas annaga aan ku qanacnay reform lagu sameeyana waa ka shaqaynaynay marka wax bilaa shaqo ah oo maanta gabdhaha ku jira baarlamaanka ay hayaan ma laha laakiin waxay ku xiran tahay dalka iyo meeshuu marayo maasanta waxaan siinayaa Professor Xasan waa maqlaysaa dooda gabdhaheena senator deeqa iyo maandeeq gabdhaha si matalaadooda iyo hoggaanka dalka doorkooda u qaataan maxay u baahan yihiin adoo ka eegaya dhanka sharciyadda iyo maxaa la yiraahdaa experience iyo khibradaada okay bismillah inta marka hore anoo marka hore u mahadnaq haddana waa ku celinaa gabdhaha sameeyay centerkan waa mahadsan yihiin hadaaye gabadha Germanka eedo meesha ka dhashay I think she was Iman Zahra waxay samaysay clarification waxay tiri haweenka gaar ahaan da'yarta tiri marka maadaama ay tiri da'yarta centerkan jiilkaas oo da'yarta ah inuu ahaadaan ku taliya oo labada jiiloo kale sheegtay maandeeq inaan la keenin meesha
kiinaan adinku wixiina wata yasar allah umuurakum taas waa taasa tan kale Soomaaliya waxaa la dhaho baawarka ama awoodda dowladnimada waa shacbi oo ah meel society la dhaha Soomaaliya ama shacbi dukuuri waa shacbi in iska horkaankana waa kasoo horjeeda laakiin duruuftaan noo qasbaysa waa shacbi dukuuri ah oo waa maxay asal ahaan aabbe iyo hooyo aabbe ayaa hooyo soo guursaday haddii hooyo inay iyada wax soo guursata loo diiday xataa inay is soo guursadeen xataa weli soo macaan gaari xataa aabbe iyo hooyo waxaa la rabaa in la dhaho ways guursad khadiijo iyo maxamed ways guursaday laakiin hadda waxaa jirta maxamed ayaa khadiijo guursaday marka arrinkan isaga ah marka dowladnimada waa heerka saddexaad waxaa ka horeeya marka hore dhulka iyo dadka ka horeeya dhulka iyo dadkoo leysku daray ayaa waxay samaynayaan ummaddaa waxay samaynaysaa dowladnimo markaas marka bayska ay ummaddu ku dhisan tahay haddii gabadha iyo wiilka haddii isguursadaan guriga laysugu keeno haddii wiilku soo guursaday gabadha macnaha he is more powerful than his wife arrinkaasaa marka wuxuu noqonaa mataqaanaa keep going kaasaa marka ayaa soconaya waxaa yimaada haddana oo dhibaato kala keena haddana oo arrinka Soomaaliya sii qaribaya haddana siyaasadda Soomaaliya oo gabadhaan hadda ila fadhida ay kamid tahay waxaa lagu soo gelaa 4.5 ka haddana waa meel dominant waaye nimanaa soo sameynaya nimankii markay soo sameeyaan haddana siyaasadda haddana waxaa go'aan ka gaaraya nimanaa ka gaaraya xataa gabadhaan hadda anigu iyada uma jeedo laakiin gabdhaha oo ku jira labada aqal ku jira waa erey adag inaan dhaho laakiin haddana markii ay xaqiiqadu ay sidaas tahay xataa laftigeeda in laga gagabado waxba tari mayso waa maxay waa laga yaabaa inaysan 100% ahayn oo deeqa ay ugu khilaafi karto laakiin gabdhaha laftigooda markay golaha shacbiga soo gelayaan ama aqalka sare soo gelayaan nin baaba sii keensadaba oo dhahaya anaa ku qoraya heblaad u codaynaysaa anaad ii codaynaysaa invested by someone maya the majority yani waa runtaa nimanka naftooda waa la Soomaal geliyaa laakiin male society always female ayaa mataqaanaa aan reer bishan aan ahayn because of tradition marka arrinkan asaga ah marka ayaga isbasgareynaya because lacagtay haystaan ayagaa nabadoonka 8 saacadood ma u tagay gabar 8 saacadood ma socon karto marka xilalka oo masalan tusaalahaan waxay soo tusaale qaaday sekretariyaddu waxay tiri 25 DG ama agaasimayaal guud agaasimo guudoo kasta oday iyo xildhibaano iyo ganacsata ayaa waardiyeysta oo reerka ayuu meesha u joogaa marka 24 hadda iyo inta lay xataa waa lagu soo qasbay oo intaas hala keenay iyo beesha lixaad iyo qajajaca lagu keeno maahane xataa nimanku xataa ma ogola because waxaa maqan conceptigii oo dowladnimaduna Soomaaliya waa maqan yahay traditionalka ama dhaqanka ama social fabricuna gabdhaha ma taageerayo anigoo marka meeshaan marka waxaa taala marka laba shay oo kala fiican ayaa midkii laga fiicnaay oo anigu u horeeyo ayaa la soo hormariyay marka caagaanoo saas loo joojihayo waa baashas waxay ku socotaa waxa dhammaa upside down ah oo foraara waxay u baahan tahay in marka la saxo oo la toosiyo waxay u baahan tahay long journey waqti dheer u baahan tahay
oo masala hadda gabdhahan yaryarka waxaa laga yaabaa maybe sida ay muuqataa hadda oo sawirkooda meeshaan lagu soo qoray inaysan weliba hooyooyin noqon ama ay hooyooyin bilaaw ay yihiin waa inaan aragnaa gabdhaha soo halganka sii wada oo ah ayeeyooyin waa inaan aragnaa long journey waqti dheer waaye marka hawshaan wax oo gabadhan lagu aadeyn karo ma aha sida ay gabadhan sheegtay iyaduna ay sheegtana waa sax oo shaqo loo baahnaa in la qabto waaye laakiin mararka qaarkood siyaasadda waxaan ku dhignaa what is iyo what out to be waxaa looga jeedaa what is waxaa la dhahaa maxaan la dhaafi karin maxaan la huri karin what out to be na waxa waaye maxaa habboonaan lahay sida caadigaana iyadoo waxa habboonaan lahay iyo hiigsigu uu furan yahay qofka siyaasiga wuxuu ku qasban yahay maxaa suurtagal inuu la tacaamulo marka de intaas baqaa fikri waa mahadsantii marka meel fiican ka bixisay sooyaalkii iyo qayb ka mid ah shuruucda in la helana caqabad fara badan ayaa dul taagan hortaagan maqrabka ka hor waxaan siinayaa dhowr qofood waxaan siinayaa maandeeq kadib aan idin siinayaa hadduu ilaa irado maandeeq dhalinyarada soo jeedisay maxay ahayd inay qabtaan xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare iyo golaha shacabka waxaad ka dhawaajisay gaabis fara badan inuu jiro maxay ahayd oo adiga is leedahay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 oo looga fadhiyey si u matalaan gabdhaha kale Soomaalida ah sanatarada horta dhiirigelin iga tahay warkayga marka waxaan rajeynayaa inaadan si kale u fahmin teeda waxa aniga aan qiyaasay ama aan rabi lahaa oo wanaag fikrid ah horta hadda ifaaladeeda socota haddii lala kombeer garay baarlamaankii hore hadda gabdhuhu caucuska hoosena aqalka hoosena wuu dhisan yahay caucuska aqalka sarena wuu dhisan yahay shirar isku darana way sameeyaan baryahan dhaqdhaqaaqan u jeednaa tareeninana way sameeyaan kaliya waxaa lagaga rabay in intaas bay ahayd shaqo fiican teeramkii horena intaas hadda mid aan ku dhiirigelinayo waxay tahay marka in aysan ka caajisin waa bilaawgeedii 30 ruux hadday mooshin ku saxiixaan professorkan uu fadhiya sanataradana way fadhisaa horta waxaas waxay noqonayaan sharci iyaga soo produce gareeyaan horta taasna inay inta isku tagaan oo ay mooshin saxiixaan oo ay sharciga produce gareeyaan iyaga soo produce gareeyaan wasaaradana la kaashadaan qoondada waa soo jeedin lahaa tan kale waxaan soo jeedin lahaa caucuska dhammaantiis ma ahan inta caucuska guddi iska soo saaro aqalka hoor kore iyo aqalka hoose oo ay ku darsadaan xubnaha civil society-ga ah because hadhowdiiba markuu waqtiga soo dhacayaba waxaa loo magacaabayaa guddiga ololeynta qoondada haweenka waaba laga kaaftoomi lahaa haddii shaqadan lasii qaban lahaa 4 years down the line uu ololeyn qoonto iyo in oday lagu dhagay iyo dowlad goboleed madaxweynaha wuxuu soo qoranaya iyo waaba laga kaaftoomi lahaa inay guddi iska soo saaraan caucuska aqalka sare iyo caucuska aqalka hoose lagu kabo xubno civil society-ga ay qoondadan weligeed ka soo shaqeyn jiray mar alaaliya marka NCC-ga qabanayaan hadda heshiiska NCC-ga u sii socdo doorashada gelintooda inay NCC-ga meesha odayaasha ay ku shira ay hortagaan ay ku hor maxaa la dhahaa ay dimandigareeyaan rights-kooda ay dimandigareeyaan waddankan heshiis siyaasadeed sida lagaga hadlayo qof iyo cod inuu dhaco sida lagaga hadlayo fiscal federalism in loo kala qaybsado sidaas oo kale heshiiska siyaasadeed inay qayb ku noqdaan sharci ahaan ay dhankii baarlamaankan ay ka qayb galaan intaas hadday qabtaan shaqo taariikhi ah waddankan u qabsoontay gabdhaha soo socdana waxay ku soo hamin karaan inay kuraas raadsadaan fursada u furmanaysa intaas way taladeedu waa mahadsanta maandeeq waa u mahadcelinaya waxay soo xasuusisay waxaa jira hadda forum aan sameynay oo UN-ka iyo gabdhaha guddiyada madaxda ka ah oo guddiyada baarlamaanka madaxda ka ah habdhowrayaasha iyo UN-ka forum aan leenahay waxaa jira forumkaasna waxaa loo diyaariyey in NCC-da lala kulmo intayna shirka gelin isteedyada loogu tago madaxweynayaasha loo tago waxaas waa wadnaa wax walba step by step waa insha Allah waa gaarina maasanta aan soo dekan oo isku soo laabanaynaa doorkiina haray discussion fiican ah qaybta dambe uu noo ahaan doona insha Allah ta'ala 5-7 minutes insha Allah